dadka ganacsatada ah oo al-shabaab lacagta siinaya ha ogaadaan lacagtaas in al-shabaab kala soo bixi doonaan hub ay ummadda Soomaaliyeed ku xasuuqayaan qiyaamada dembigeeda qayb ayaa ku yeelanaysa sida uu nabigeena noo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam haddii aad qof daalima u kaalmayso dadka Soomaaliyeed ganacsatada waxaa looga baahan yahay unsur akhaaka daaliman aw madluuman walaalka markuu gardaran yahana waxaad tiraahdaa waa gardaran tahay marka laga gardarayna waxaad tiraahdaa waa laga gardaran in asaas ugu kaalmeeda laga rabaa meesha aad lacag ku bixi lahayd dad daalimiin ah oo ummadda muslimiinta dhiigooda caadaystay dadka Soomaaliyeed shacabkana waxaan leenahay isdajiya dawladdiina la shaqeeya maxaa yeelay Cali ibn Abi Talib oo kamid ah 10 mubashiriin bil janna oo nabigeena jannada ugu bishaaray calayhi salaatu wasalaam ayaa xoo ahaa in wada loo galay ayaan la dilay waxa lagu dul akhriyay wa min an-nas man yashri nafsahu ibtigaa'a mardaatillah dadku waxa kamid ah dad nafsadantooda Ilaahay ka iibsaday Ilaahay ridihiisa iibsaday waxaan janno ku raadsanayna Cali ibn Abi Talib ay dhaheen alxamdulillaahi rabbil caalamiin thumma salaatu wa salaamu ala ashrafil anbiyaa'i wal mursaliin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmaciin insha Allah ta'ala waxaan marka hore ka tacsiyeynaa dadka shacabka ahay oo lagu gumaaday deegaanka Xaawo Cabdi duleedka magaalada Muqdisho dad waxay ahaayeen masaakiin ah muslimiin ah maalinta qiyaamaha waxa la weydiin doonaa dadka dilana waxa la dhihi doonaa bi ayyi dhanbin qutilat waxaan ka hadlaynaa insha Allah ta'ala dadka muslimiinta ah oo la dilaayo xaq darro lagu dilaayo waxa Ilaahay xaqiisa ay kala kulmaayaan dadka caadaystay daadinta dhiigga muslimiinta ah oo ah ururka al-shabaab iyo daacish Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam qofka qof mu'min dilo oo waliba kas u dilo abaalmarintiisa jahannama waaye Ilaahay aanu caroonayo Ilaahayna wuxuu waana lacnaday wuxuu u diyaariyay cadaab weyn ayuu Ilaahayna leeyahay subhanahu wa ta'ala Ilaahay sidaas oo kale wuxuu noo sheegay qof muslim ah qof mu'min ah inuu san dilin qof kale oo mu'min ah wama kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khada'an illa inuu gaf u dilo ee uga fakata mooyaane qof mu'min ah oo islaam ah qof kale oo mu'min ma dilo sidoo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu noo sheegay sidaas oo kale nabigeena calayhi salaatu wasalaam markuu ka hadlayay dadka muslimiinta dadka dilo wuxuu yiri maalinta qiyaama wuxuu yiri nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxa idin soo mari doonto maalin uu san garanin qofka la dilaayo waxa lagu dilaayo qofka dilaayo uu san garanin waxa uu ku dilaayo walaalkiis muslimka ah nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay dambi oo dhan hadii la gala inuu tooba leeyahay ilaa qof xoo ahay Ilaahay u shariig yeelay iyo qof mu'min si kas u dil mooyaane maalinta qiyaamaha dadka daadina dhiigga muslimiinta waxa la dhihi doonaa sababta u disha maxay tahay qofka muslimka ah miye dadka Xaawo Cabdi lagu dilaayo iyo dadkii ka hor la dilaayo qaraxyada lagu fulinayo dadkaas waxay dadkan ku dileen ma garanayaan dadka wax dilana waxay u dileen ma garanayaan dadka la dilana wax loo dilo ma garanayaan sidaas oo kale waxa loo baahan yahay diinta islaamka qofka muslimka iska daayay qofka aan muslimka ah oo gaalka ah ayay naga reebtay diinteena islaamka nabigeena wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qofkii gaal mucaahida oo dawladda islaamka balan ay la gasho qofkii dilo qofkaas jannada carafteeda ma arkaayo waxaana laga arkaa jannada carafteeda 40 caaman meel loo socdo waxa laga dareemaa carafta jannada meel loo soconayo 40 sano meel loo soconayo 40 sano meel loo soconayo xatir ma soo gaarayo jannada ma ka carfinayo qof gaal ah oo dawladda islaamka balan la gasho qofkii dilo ka warrama qofka qof muslim dilo nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxa loo sheegay inuu dilo Usaama ibn Zayd nin markii hore laayay asxaabta rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii uu seefta ku dhifa maagay ayuu tawxiidka ayuu qiray markaas uu seefta ku dhiftay nabiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam markaas wuxuu qataltahu bacda ma qaala la ilaha illa allah ma waxa dishay markuu yiri la ilaha illa allah kidib Usaamo markaas wuxuu rasuulka Ilaahay ha sababtoo ah wuxuu isku badbaadinay markaas xabiibkeen wuxuu calayhi salaatu wasalaam inuu isku badbaadin adiga ma yaa ogeed xabadkiisa ma yaa jeexday ma daalacatay qataltahu bacda ma qaala la ilaha illa allah Usaama ibn Zayd wuxuu leeyahay maalintaas wixii ka horeeyay inaan islaam ahayn aan maalintaas u maleynay sidoo nabigeena ugu celceliyay calayhi salaatu wasalaam qataltahu bacda ma qaala la ilaha illa allah maantana waxa lagu dhihi doonaa qof muslim ah oo masaajid ku jira soo dil ama qof muslim ah oo iska adeeganaya soo dil ayaa lagu dhihi doonaa markaas maalinta qiyaamaha aad waxaad ku dishaa sheegi way doontaa qofka qof muslim dilo oo waliba si kaas u dilo wax tooba ah oo Ilaahay xaqiisa oo uga furan haba yaraatay ma jirto waxa loo baahay dadka muslimiinta dhiigooda marka la daadi lahay in laga bari noqdo loo baahay ina waxa aad dilayso ama talaata qaadaysan sharci u leedahay lagaga baahay dadka iska dilayo caadeysta dilkooda waa dad u shaqeynaya dana gaar ah sida wada garanaysan cudurkan coronavirus la yiraahdo waxa ka daran fikirka al-shabaab ay ku dagaalamaan ama daacish oo ah fayraska ugu xun adduunka oo soo maray coronavirus uma fiiriyo qaarad ama uma fiiriyo islaam iyo gaal laakiin ururka al-shabaab dagaalankooda wuxuu khaas ku yahay
dowladaha islaamka waxaad la socotiin qaacido la yidhahdo hadmu diin bismi diin in al-shabaab iyo daacish ku dhaqmaan dadka muslimiinta ay dilaan weliba si gaar ah waxay u dilaan dadka aqoon-yahanada ah iyo culimada nabigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay in allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yantasicuhu min alcibaad walaakin yaqbidu alcilma biqabdi alculamaa ittakhada annaasa ru'uusan juhaalan nabigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay diinta xooha cilmiga lama qabdoonayo laakiin waxaa la qabdoonaa marka hore dadka culimmada iyo ehelka u ah dadka aqoon-yahanada ayaa la dhammaynaa marka hore maxaa soo haraa markaas xataa idaa lam yabqa caaliman ilaa hal qof oo caalimo wax garto uusan soo harin ittakhada naasa ru'uusan juhaalan dadka waxay yeelanayaan madax jaahiliin ah fa su'iluu faftuu bikayri cilmin fadalluu wa adalluu su-aal ayaa la weydiina waxaa leeyahy hebel murtad waaye ma soo dila soo dil iska leeyahy hebel saasoo yeela soo dil marka waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed oo masaakiinta maalin walba la dilaayo waxaa sharaf badan adigoo dagaalamaayo amba aan la shaqeynin al-shabaab inaad dhimato meesha aad ku dhimo lahayd adigoo si ka baadila dhiibay dadka ganacsatada ah oo al-shabaab lacagta siinaya ha ogaadaan lacagtaas in al-shabaab kala soo bixi doonaan hub ay ummadda Soomaaliyeed ku xasuuqayaan qiyaamada dembigeeda qayb ayaa ku yeelanaysa sida uu nabigeena noo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam haddii aad qof daalima u kaalmayso dadka Soomaaliyeed ganacsatada waxaa looga baahan yahay unsur akhaaka daaliman aw madluuman walaalka markuu gardaran yahana waxaad tiraa waa gardaran tahay marka laga gardarayna waxaad tiraa waa laga gardaran inaad saas ugu kaalmeeda laga rabaa meesha aad lacag ku bixi lahayd dad daalimiin ah oo ummadda muslimiinta dhiigooda caadaystay dadka Soomaaliyeed shacabkana waxaan leenahay isdajiya dawladdiina la shaqeeya maxaa yeelay Cali ibn Abi Talib oo kamid ah 10 mubashiriin bil janna oo nabigeena jannada ugu bishaaray calayhi salaatu wasalaam ayaa xoo ahaa in wada loo galay ayaan la dilay waxa lagu dul akhriyay wa min an-naasi man yashri nafsahu ibtigaa mardaatillah dadku waxa kamid ah dad nafsadantooda Ilaahay ka iibsaday Ilaahay ridihiisa iibsaday waxaan janna ku raadsanayna Cali ibn Abi Talib ay dhaheen marka adigoo miskiin oo Soomaali hadii janna kugu raadsadaan meesha janna ma taale jannada nin shaydaana oo meesha joogo Ahmed Diiri la yiraahdo ayaa qofka fikirkiisa raaco wuxuu leeyahay ahlu janna tahay qofka hor yimaadana wuxuu leeyahay ahlu naar tahay marka midaas jannada saxda ma aha jannada saxda waxa la yiraahdaa qofka muslimka nabadgeliyo muslimiinta ka nabadgalaan carabkiisa jannadiisa qofkaas ayaa muslim dhaba sidoo nabigeena noo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam diinteena waxay nafaraysaa iimaanka inuu 70 qaybood u yahay halka ugu sareeyay uu yahay laa ilaaha illa allah wa adnaha tan ugu hooseedo iimaankana inuu yahay imaadatul adaa aan dariiqi wadada inaa ka qaado waxa dhibay dhagaxyada inaa ka qaado wadada qodxaha inaa ka qaado waxyaabaha u raayo muslimiinta dhib inaa ka qaado laga raba laakiin al-shabaab bedelkeeda wadooyinka waxay dhigaan miinooyin waxay dhigaan qaraxyo dadka ay ku dhabaabinayaan ayagoo dhahayo waxaan Ilaahay ugu dhawaanina subhanahu wa ta'ala taas waa been abuur marka hore dhiig muslim ay banaasteen marka labaad Ilaahay ku been abuurteen marka saddexaad ummadda muslimiinta ay waxay leeyihiin Ilaahay ugu dhawaanina halka ummadda Soomaaliyeed al-shabaab wuxuu yahay xadiiska rasuulkeena halka calayhi salaatu wasalaam rasuulkeena wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastadi' fa bi lisanihi fa in lam yastadi' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman qofka muslimka hadoo arko munkar waxa la rabaa gacantiisa inuu ku suuliyo markuu arko oo awoodi waayana waa inuu carabigiisa ku suuliyaa hadoo awoodi waayana waa inuu qalbiga ka naca ummadda Soomaaliyeed oo masaakiinta ah oo saxoohay muddo 10 sano ka badan al-shabaab ay xasuuqayaan waxaan leenahay war dawladdiina la shaqeeya hadda la dagaalami kartaan la dagaalama hadda la dagaalami karina soo sheega haddaan soo sheegi karin qalbiga ka naca soo dhaweysanin qof Soomaali ah oo maanta al-shabaab uu dib u geysan ma jiro hadii la wada og yahay qaraxii sabab ummad dhan ku baabaad qof insan qaraabadiisa ama saxaabtiisa ku dhiman ma lahan qaraxidii ka dambeeyay kubi ka horeeyay sidaas oo kale laakiin cudurka la yiraahdo coronavirus waxa la helaa qoys oo san ku dhicin la helaa marka al-shabaab shartooda iyo coronavirus-ka cudurka la yiraahdo dhibaatadiisa waxa badan cudurka coronavirus-ka cudurka al-shabaab oo ah fikir soo jireen ah loona baahan yahay in la dagaalamo fikirkaas ummadda laga dhaadhiciyo inuu yahay fikir aan ogolaan in la wada noolaado diinteena islaamka waxay san ogolaan nabigeena wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qofkii dhimi dhibo aniga ayuu dhibay qofkii aniga dhiban ilaahay ayuu dhibay qofkii ilaahay dhiban abaalmarintiisa jahannam waa qof ilaahay dhibi karmiya jiro ilaahay asaga raxiim ah oo naxariistiisa badanta oo raxmaan ah sidaas daraadeed dadka mujrimiinta oo dhaalimiinta ah oo dhiig muslimiinta banaysanay xariga ayaa loo dheereena sababtoo ah jahannama dad ay waxay u baahan tahay jahannamada la abuuray dad gal ayaa loo baahay wadaadada nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay waxaan inkaaga baqaa nin quraanka bartay quraanka nuurkiisa laga dareemay markii quraanka nuurkiisa laga dareemana gadaashiisa ku tuuray ilaa uu diriskiisa oo ku wareego oo ku tuuro waramahu bishirka gaalimo ku tuura wuxuu leeyahay gaalatiin
قالاتين ولي نبينا وحا حذيفة بن اليمان صاحب سير رسول الله صلى الله عليه وسلم ayaa wuxuu rasuulka Ilaahay midka gaalnimada lagu tuurayo diriska ah iyo midka ku tuurayo wadaadka quraanka nuurkiisa laga dareemo quraanka gadaashiisa ku tuure keeba gaalnimada ku ooleysan markaasuu nabiga wuxuu yiri kaleey salaatu wasalaam midka gaalnimada ku tuurayo ayaa gaalnimada uga dhow al-shabaab dadka gaalnimada ku tuuraysa ayaa gaalnimada uga dhow annaga waxa naga nabad galo ummadda Soomaaliyeed waxa naga nabad galo dadka culimada diinka ah laakiin al-shabaab bedelkeeda waxay dhameedaa dadka culimada diinka ay dhameedaa xalka marka wuxuu yahay qof walbo muslima mas'uuliyada saaran كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي قفل إبا مسؤول واي وحنا مسؤول كي وحي الراعي وحرمنا عباياش صومال المهود إني برباريان كر إلاليان فكر كان أرجع حسدا إني كي إلاليان وحلو باني أباه معلن كدكسي وجيستنو كونترولو إنه يا معلن حق جرأة إنه يا معلن في عنو دين الإسلام كده معي سيدا سوكل وحلو باني بلشدنا قفك وحلو ديبنا أم لا أمناي إنه يهاي أرجع حسو إنه قف نظيفة إنه كله هذا لو باين إن شاء الله تعالى marka labaad in marka saddexaad waxaan ka tacsiyeynaa dadka Soomaaliyeed oo masaakiinta ah oo maalin walba in la dilo la leeyahay Ilaahay uga dhawaanina taasna waa been abuur weyn oo Ilaahay lagu been abuuray subhanahu wa ta'ala waxa leenahay ummadda Soomaaliyeed al-shabaab iyo daacish Allah ka qabto halkaas ayaan uga baxaynaa insha Allah ta'ala